السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكس صاحب بيال سود وهذا مركن وحين إنه ذا شاكو أن هذا كور قري وإنه ما قاعد دري في يجرا والنفس جلي ونفط هذا قطع كنيني جاني ما أهندل والنفس جلي ونفط هذا قطع fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channel-kayga Dr. Samir Cabdullaahi Bootaan waxaan ka codsanayaa inaad ii subscribe gareyso haddii aad muuqaalka ka daawanayso Facebook page-kana waxaan ka codsanayaa inaad sidoo kale na soo follow gareyso haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore noola joogo waxaan ka codsanayaa inaad noo like gareyso share iyo comment inaad nagu caawiso si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale mahadsan sheekadan waxay ka dhacday magaalada Muqdisho habeenada kamid ah xilli ay saacadu ku beegneed 2 saac iyo habeenimo ayaa waxaan imaaday farmasi daris la xafadayda kadib farmasiga anigoo jooga ayaa waxaan aragnay oday ay wadaan niman kadibna ay wala cararayaan isbitaalka xagiisa markii aan fiiriyay oo odayga kale muxuu yahay maxaa ku dhacay waxa la ii sheegay in uu ku suuxay ama uu ku dhacay sariirtiisa dusheeda oo san lahayn wax miira odaygu wuxuu galay coma balse mid iigu yaabka badneed waxay ahayd markii yarkii farmasiilaha ahay ee deganay xafada oo ii sheegay in odaygani oo u yimid cishihii una isticmaalay 2 kaniini oo Viagra ah wuxuu ugu yiri wuxuu ku isticmaalay caafidan wuxuu isticmaalay 2 xabo asaga wuxuu islahay hagaaji sariirtaada oo nafis geli balse naftiisa ayuu qatalay waxa iiga dareyd marwadiisa lama uusan wadaagin oo iska qabiyay intaas kuma isa ekaane yar kale oo maqribkii joogay farmasiga ayaa wuxuu noo sheegay in xaaskiisuna ay maqribkii qaadatay 2 kaniini oo Viagra ayadoo rabtay inay hagaajiso gogasha ayada isaygeeda balse sheekadaasi mar kale ay iiga dartay waxayna noqotay xaajigaaga nafgeli balse naftiisa qatar sidaas darteed adeerkaasi waxa ku maqan 2 kaniini oo laga yaabo in caanaha ama lagu daro cabitaanka asagana 2 xabo ayuu farmasiga ka sii cunay waxa ku maqan 4 kaniini meeshaasna markuu hooshii bilow maagay waxay noqotay inuu meeshii ku dhaco kadibna uu noqdo coma sidaas oo kale rag badan ayaa u dhinta xaaladaas waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ee qabaan odayaasha qaar ha u soo gadin hana ugu darin caanaha daawo shalay sidiisa ay ku guursatay odayaashana waxaan leeyahay adeer dad isticmaalayso daawada ku isticmaal marwadaada horteeda ha ku soo isticmaalin farmasiga wax la iska qariyo meesha meela aad iyo umaasin barnaamijkeeni caafimaadka aan ugu hadlayay wacyigelintii kaniinigii Viagra halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa wixii talo tusaalo iyo fikrad ay noo haysana qaybta hoose inuu la wadaag kulay waxaa jira dhalinyaro fara badan iyo odayaal fara badan iyo dad fara badan oo qisooyin ku dhacay ama se dad ay ku dhaceen ee la joogeen inuu la wadaag commentiga haddii aad aragtay qof dhibkan oo kale oo hadda qoor ku dhacay aad iyo umaasin fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channel-kayga Dr. Samir Cabdullaahi Bootaan waxaan ka codsanayaa inaad ii subscribe gareyso haddii aad muuqaalka ka daawanayso Facebook page-kana waxaan ka codsanayaa inaad sidoo kale na soo follow gareyso haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore noola joogo waxaan ka codsanayaa inaad noo like gareyso share iyo comment inaad nagu caawiso si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale mahadsan